ما سنتهاي كل وقصة تلقى اللي يقرون مركز سوق لسوينا بديسو أما لقى بدي أما برجع شو عقيدي عيارتي دي قلبت عياري السي الشحذي لقوا سوق لي واحد كان عود عيارات لكن السيف كاديدي waxaan leenahay ciyaarahan nabadgelyaha nagu dhamaadeen shacabka Puntland natiijada iyada waxayna aan badino si aan goolka banaadir soo aragno oo marti loo yahay waayo iyada banaadirna classic naga dhaxaysa laakiin hadda galmudug aan dirisna ku dhacay aan rajaynayaa ciyaar wanaagsan inaan la ciyaari doono guul la ka gaari doono insha Allah waxaan rajaynayaa inaan koobkan garow ka dejin doono insha Allah finalkan iska xarid doono insha Allah 16 ayaa garow ka dejisan marka lama taa hadda inaad marka la garow ka dejisin xaqiiqdii ciyaartooygan wadana tayadooda ciyaareed waxaan rajaynaynaa inaan guul ka gaari doono ciyaaraha oo finalka iska xadirin doono ciyaartu laakiin koobka calafka iyo wax ilaahay qoray way laakiin awood ciyaareed aan ku qaadano waa wadana koobkuna dhan ma yeelanahay haddii Puntland ka maqan tahay marka waxaan filayaa maanta Astaan Sports waa 36 buu maraya waa shacabka Puntland oo ku xeeran mataqaana barta Astaan marka waan ka mahad celinaynaa shacabka Puntland waxaan leenahay waa maasantiin waxaan rajaynaynaa insha Allah ciyaar guul wallahi galmudug waa koox wanaagsan oo aad u fiican ciyaar wanaagsan soo bandhigtay annaguna sidoo kale ma sha Allah markay saddexaad aan tartanka taariikhan ka higsanayno waxaan jecelnahay horta halkaan meel ka sareysan aan higsano galmudug waa kooxda kaliya aan tartanka arag laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa in markay ugu horeysay aan ku guuleysano insha Allah waan gartay 16 ayaa qaadeen haddana waxaad wajahayeen galmudug markii ugu horeeyay is wajahayeen ciyaarta iyo sidee tahay inta waqti wallahi galmudug waa team fiican annaguna sidoo kale aad baa wanaagsannahay alxamdulillah waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysano sida ilaahay carafkeeda ka dhigay haddana ay guuleystaanna oo hambalyeena haddii ka guuleysan sidoo kale waan gartay taageerayaasha ku sugan garowe iyo kuwa ku sugan dhammaan reer Puntland oo dhammaan inta caalamka ku sugan oo Puntland taageerta maxaa leedahay dhammaan taageeraha shacabweynaha reer Puntland waxaa leeyahay dhammaantiin naga soo waxaan nooga barateen waana guuleysanaa insha Allah tartankan mar dambe mar kale gacmihiina ku soo celin doonaa haddii nafteena daayo wallahi de kubad fiican waan ciyaarnay laakiin waxaan ugu adkay ciyaartii koowaad aan ciyaarnay aan la ciyaarnay Jubaland iyo Puntland way fiictamaan labadii koob u dambeeyay iskugu yimid laakiin maanta insha Allah bilaa waa gudubnay ciyaarta soo socotayna waxaan rajaynaynaa guul insha Allah bilaa kariim haddii Ilaahay raado galmudug ayaa la ciyaaraysan balka war kuna kaas galmudug iyo Puntland oo iswajahayaan wallahi waa kulan aad u adag oo xamaasadaysan laakiin insha Allah waxaan ku tala jirnaa inaan ka guuleysano gobolka haddii Ilaahay raado insha Allah eedeedan garwaaftaan geega barbaradana eedan kuna Puntland la galnay insha Allah koobkan uu guuleysano Ilaahay rab banaadir ayaad wajahaysan bal gobolka banaadir aad la ciyaaraysan ka waran ma banoona aad iyo madow December laakiin insha Allah koobkan dib ay dhawjeeno saasara jeeno Ilaahay rab ما شاء الله الحمد لله horta ugu horeyn ilaahay maadi shukr leh ilaahay ka soo nin suuri galiyeen oo geeg xirfadan inta ka bandhigna saas oo kale aan ilaahay in suuri galiyeen gool inta ka dhali alxamdulillah horta ma ilaahay maadi ilaahay aan sugnaati ilaahay ku soo macallinkay macallimiinta iyo guddigii iyo dhalinyaradii banooniga dheelan iyo maadi alxamdulillah yoon eedeedan kama siin isin aslan ma ilaahay TV eedeedan kama siin maadaama isin waray soo gaadeen insha Allah kulay banooni horta banaadir oo wajahano banooni adi midow ninka elafgay laakiin ma iska dayaan inuu ku badiyno awoodaan inta ka bandhigna runtii natiijada oo galabta dhacday kulay ilaahay xaqiisa ay qoran tahay oo darooga ah alxamdulillah hadan ilaahay ma hadaas ay sugnaatay runtii aadan ugu faraxsanahay in oo kaalinta koowaad macnaha groupka aan uu soo baxo sideedana waxa waaye hal dhiga oo koonfur galbeed ah waxa koonfur galbeed kaalinteedu waa koow marka runtii aadan ugu faraxsanahay in groupka koow aan ka naqano haddana sama finalka koow aan ka naqano finalkan koow aan ka naqano koobkaana إن شاء الله هدو إلهي كرال نقضو وكفر قلبت وكو ونقضو الحمد لله رب العالمين قلبت عيارت ماشي كده عضي برنشا كده عضي برنشا وكو صبحنا وكو قناعصنا إن شاء الله وحن رجينا يا لابد كون تضمن كي ساس وكلام لو جيم برنشا وكو صبحنا فينا نواجهني إن شاء الله حن رجينا فينا لنا جارنو كوب كنا قادنا هدو لا يرادو قل مدبرتي مجعلين دام إنه لابد إنه عن أدرس كتاجريني haddana waxa waaye kubaddu waa tartan weeye insha Allah waxaan rajaynayaa ciyaar qurux badan in la soo bandhigno insha Allah guushana aan qaadano final gaarno hadii la yiraahdo waan gartay macallin marka la fiiriyo ciyaartooy qaar ayaa way doontaa maadaama kulanka soo aadan aad wajahaysid galmudug dhinaca kale marka loo fiiriyo ciyaarta waxay ciyaar aad u xusmantay hadda soo ilaatay bal tan galmudug oo dhawaan aad soo wajihi doontiin maxaa leedahay والله waxaan leeyahay galmudug runtii groupkeeda koow ku soo baxday lama dhalinyarsan karo إن شاء الله وحن رجينا إن متقنا عيار في عنا صوب بندقنا جوشنا إن شاء الله وأن فينا التقنا بقول كيف بقول عيار تيدا مكان وحب بعد عكرة ركلوا في عنا طيلة وفردية مركا وحن رجينا إن عيار حماس الله على غلني ما إن شاء الله
aan noqono nimankii tiimkii ugu horreeyay finaal gaarina hadda ilaahay wallahi de ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qoray waa meesheeda laakiin anaga rajadeena waxa weeyaan ilaa final sinal kaga bartay anaga waxaa darneed waxa weeyaan anagoo tartamayaasha koobka ka mid ah inaan gruub ku hadlano annaga ceebta ugu weyn aan ka cararaynay taasay ahayd alxamdulilah rabbil caalamiin waan soo baxnay fokuska hadda waxaan saaraynaa wixii ilaahay qoray waa meesheeda inaan final ku dagaalano haddaan tagno alxamdulilah rabbil caalamiin haddaan tagi weyno falilahi rabbil caalamiin haddana maasha allah bismillahi raxmaani raxiim horta puntland horta hadday meesha soo gasho koobka afar dhamaadka ay soo gasho cid kasta wadnahay gacanta saaraysaa way ka cabsanaysaa insha allah dhigeenna galmudugna waxaan rajaynaynaa inay ciyaar qurux badan soo bandhigi doonaan insha allahna ciyaarta waxaan rajayn doonaa in aan garanaysaa si awood ah oo awooday ku dheehan tahay aan ku soo bixi doonaa haddii ilaahay idmo